سورة قريش. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. waxaynu bilaabaynaa in sha allahu tacaala suuratu quraysh ayaynu bilaabaynaa. bismi illaahi araxmaan araxiim. liilaafi qurayshin ilaafihim rixlata ashitaa'i waasayf falyacbuduu rabba hada albayt aladii aطcamahum min juucin waaamanahum min khawf. liilaafi qurayshin ay icjabuu la yaaba liilaafi qurayshin caadaysadka ay qurayshi caadaysatay la yaaba iyo laasimitaanka ay laasimtay oo ka caado yeelatay. iilaafihim ka beddelo caadaysadkooda ay caadaysteen la yaaba rixlata ashitaa'i waasayf, jiilaalka safarkiisii ay safri jireen, wasayfi iyo xagaaga safarkiisii ay safri jireen, safarkoodii ay safri jireen la yaaba. ashitaa waa jiilaalka ama diraacda wey, wasayfna waa xagaaga. falyacbuduu ha caabudaan rabba hada albeyt, gurigan kacbada ah ka u rabbiga ah ha caabudaan, allah ha caabudaan baa loo jeedaa. aladii kaasoo rabbigaa laga sifaynayaa aطcamahum quudiyey oo siiyey min juucin gaajo ka quudiyey, wa aamanahum ka nabadgeliyey min khawfin cabsi ka nabadgeliyey. suuraddani suuradda horeynu soo maray ayay shabah isku leeyihiin, waayo suuradda horena waxay ku saabsanayd dadkii kacbada ku soo duulay iyo sida loo halaagay, in dadkaa laga caabiyey oo kacbadii laga celiyey oo reer maka inay laayaan laga celiyey oo laga baajiyey. waa nicmo weyn weeyi. kacbadana waxaa degganaa agagaarkeedoo xaram ka yaallay quraysh baa yaallay. suuraddan lafteeduna waxay ku saabsan tahay nicmooyin ilaahay quraysh siiyey oo ugu nicmeeyey. quraysh waa qoladuu nebigu ka dhashay sala allahu calayh wasalam, waana cidda carab ugu mudan ee ugu fadliga badan, oo qabaa'isha carbeed quraysh baa ugu mudan. hadday cadnaaniyiin yihiin iyo hadday qaxtaaniyiin yihiinba dhammaan waxa ugu mudan oo ugu fadli badan quraysh baa ugu mudan. fadaa'ilna ilaahay waa siiyey. fadaa'ishooda waxaa ka mid a suurad dhan oo iyaga ku saabsan inuu ilaahay soo rogay. waa suuraddan waxay ku saabsan tahay quraysh bay ku saabsan tahay. xadiisna waxaa ku soo arooray ilaahay quraysh inuu ku fadilay 7 umuurood. 7daa umuurood waxaa ka mid a inuu suurad yacni iyaga ku saabsan inuu ilaahay soo rogay. fadaa'il kalena waa la siiyo, waxaa ka mida nebi moxamed in laga soo saaray. fadaa'il kale waa la siiyo, waxaa ka mida khilaafada ayaa ka mid a, oo ummadda islaamka inay u taliyaan waxa u xaq leh quraysh, oo nebigu wuxuu uhi salى اllahu عalيyه wasalam ala'immatu min quraysh. imaamiyaalkiiyo madaxdu quraysh bay markaa ka tirsan yihiin oo bimacnaa ka mid noqonayaan, oo cidda inay muslimiinta u taliso u xaqa lihi waxay noqonaysaa quraysh bay noqonaysaa. marka umuurahaasaa ka mida umuuraha uu sheegay xadiidku, markaa uu sheegay umuurahaasaa ka mida. quraysh waxaa marka ay taallaa maka ayay taallaa, makay taallay. maka waxay ahayd meel buuraley ah oo buuro fara badan bay meeshu leedahay, biyuhuna waa ku yar yihiin, dhul beereed ma aha, xoololey bay ahaayeen oo
buuraha marka adhiyo ayay daaqsan jireen, adhiyo ayay haysan jireen. asxaabu tijaarana way ahaayeenoo baayac mushtar bay samayn jireen. baayac mushtarkooda marna xaggaa iyo shaam bay qaban jireenoo ay markaa raashin iyo bucshirada ka keeni jireen. dhulka shaam la yidhaahday u safri jireen. shaam waa dhul ballaadhan, hadda markaysagaa waddanno badan bay u kala qaybsantay. urdun iyo lebnaan iyo suuriya iyo falastiin iyo in turkiga ka mida iyo in yar oo ciraaq ka mida iyo in masar ka mida oo siinaa ah, intaasoo dhan ba waxay gelaysaa yacni markaa shaam bay noqonaysaa. xaggan dacalka waxay u soo gaadhaysaa sacuudiga qarkiisa oo tabuuk waxay ka mid tahay shaam. xagga kale masar bay la gelaysaa. falastiin oo dhan waxay ka mid tahay shaam. urdun oo dhan waxay ka mid tahay shaam. lubnaan oo dhan waxay ka mid tahay shaam. suuriya oo dhan waxay ka mid tahay shaam. turkiga qayb baa gelaysa, xagga ciraaqna qayb baa gelaysa. dhulkaa ballaadhane sidaasa ayaa waxaa la odhan jiray shaam. dhulkaa shaam waa loo safri jiray. qurayshi intay u safarto ayay bucshirad ka keeni jirtay. dhar iyo raashimo iyo yacni ayay ka soo waaridi jireen. asxaabu tijaaray ahayd. xilligay xaggaa qaban jireen waxay ahayd yacni shitaaga, jiilaalkay ahayd. marna waxay qaban jireen xaggan iyo yaman, oo yaman bay u safri jireen. yamanna waxay qaban jireen marka xagaagii bay qaban jireen. cafwan waan isdaba mariyey. xagaaga waxay qaban jireen xagga shaam. xagaaga waxay qaban jireen xagga shaam bay qaban jireen. shitaagana wakhtiga jiilaalkiina waxay qaban jireen xagga yaman. saasay ahayd. marka labadaa xilli bay safarkaa samayn jireen. awr bay kaxaysan jireen. gaadiidka la haystay awr baa ugu fulki ahaa. awrtaa inta la kaxaysto oo awr fara badan la kaxeeyo baa alaabada lagu soo rari jiray. markay soo iibsadaan bay awrtaa ku soo rari jireen, dabeedna saasaa lagu keeni jiray. iyadoo maka aan waxba ka bixin, haddana midhaha meel walba ka baxa iyo raashimada ka baxa waa la keeni jiray. yujbaa ilayhi hamaraatu kulli shay. waxaa la keenayaa shay walba midhahoodaa la keenayaa. yacni simaartaa iyo midhahaasaa la keenayaayoo nooc walba waa lagu cunayaa, waa loo soo waaridaya. xaramkii bay degganaayeenoo ilaahay waa ka ilaaliyey colaad, nabadgelyuu siiyey. laba nicmo waaweyn weeye qofku inuu quudkiisa iyo arsaaqdiisa helo oo aanu gaajo ka baqin, iyo inuu nabadgelyo helo oo aanu markaa colaad ka baqin iyo in cidi disho. aladii aطcamahum min juucin wa aamanahum min khawf. marka rabbiga beydkaa u saaxiibkaa, beydkuna waa beydkii lagu xurmayn jiray yacni reer maka, waa kacbada. beydka rabbiga leh ee u saaxiibkaa yacni ha caabudaan, keligii ha caabudaanoo cibaadada ha u keli yeelaan. oo kaannahu la yidhi nicamka ilaahaya tirada badanee kaleba hadday u caabudi waayeen ilaahay dartii, hadday ilaahay u caabudi waayeen shukrinaq ay nicamkaa ka shukrinaqayaan, nicmadan yacni tan daraaddeed ha u caabudaan. safarradaasi waxay ku suurogel yihiin nabadgelyo inay haystaan. nabadgelyoay haystaan oo qabaa'ishii way ammaan gelinayaan, waa la ixtiraamayaa. markaasay marna shaam u gooshayaan, marna yaman u gooshayaan, nabadgelyona ku soo noqonayaan. waa nicmo weyn. ilaa haddii nabadi aynay jirin yacni laysma dhex mari karo. oo cidina cid ma dhex mari karto. naftii baa loo baqayaa.
safarkii wuxuu sahlanaanayaa marka nabadgelya jirta ayuu sahlanaanaya marka labadaasi waa laba nicmo waaweyn weeye laakiin markay ka abaalka dareen yacni nicmadii ilaahay oo qurayshi ay nebiga ka gaalowday badankoodu ay ka gaaloobeen dee ilaahay wuxuu ku imtixaanay gaajo gaaju ku salliday iyo abaaro wuxuu kaloo ku salliday cabsi ayuu ku salliday faadaaqaha allahu libaasa aljuuci waalkhawfi bima kanuu yasnacuun yacni masalka qaryada loo soo qaadanayo suuratu naxli waxay culammadu yidhaahdaan waxaa looga jeedaa maka ayaa looga jeeda وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون بما كانوا يصنعون waxaa loo jeedaa shirkiga gaalnimadaa loo jeedaa oo markay gaaloobeen ayaa dhibaatooyinkaa lagu salliday marka waa taxdiir laga digaayo in nicmada ilaahay laga abaalka daro waa baraarujin laynagu baraarujinayo in nicmada ilaahay lagu shukri noqo oo xasuusinta nicmada la xasuusinayaa waxay faa'iidaynaysaa in lagu kicinaayo shukri naq taasay faa'iidaynaysaa taas ayay faa'iidaynaysaa bismi illaahi araxmaan araxiim liilaafi qurayshin ay icjabuu la yaaba liilaafi qurayshin caadaysadka ay qurayshi caadaysatay la yaaba ilaafihim rixlata ashitaa'i waasayf culamada qaar icjabuu bay u qadareen culamada qaarna waxay yidhaahdeen falyacbuduu baa ku camal falaysay yidhahdeen oo nicmadaa daraaddeed uu ilaahay sidaa ugu nicmeeyey oo uu ka yeelay qaar rixladaa laazimaayo nabadgelyo ku laazimaayo cidina aynay waxba yeelaynin taa daraaddeed ilaahay ha u caabudaan liilaafi qurayshin ay icjabuu la yaaba liilaafi qurayshin caadaysadka ay qurayshi caadaysatay la yaaba oo laasimtay ilaafihim ka beddelo caadaysadkooda ay caadaysteen la yaaba rixlata ashitaa'i waasayf yacni jiilaalka safarkiisii ay caadaysteen rixla waa irtixaal waa masder ay u rixlaysanayeen yacni xagga yaman wakhtiga shitaagii jiilaalkii wasayfi iyo wakhtiga xagaaga inay rixlaysanayeen oo u safrayeen xagga shaam taa la yaaba oo nabadgelyo ay ku tegayeen oo ku gooshayeen oo bucsharadooda iyo tijaaradooda ku soo qaadanayeen dabeedna nabadgelyo ku soo noqonayeen falyacbuduu ha caabudaan rabba hada albeyti beytkan kan ah cidda u rabbigaoo allah ah ha caabudaan aladii acamahum min juucin wa aamanahum min khawf rabba ayaa laga sifaynayaa aladii kaasoo rabbigaasoo acamahum quudiyey min juucin gaajo ka quudiyey gaajo ayuu ka quudiyey oo ka badbaadiyey oo waxay cunaan siiyey wa aamanahum nabadgeliyey min khawfin cabsi ka nabadgeliyey wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfir